السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا waxaa meeshan la soo fariistay xawayaan Amiir Qurux oo si qiiro leh uga soo jawaabtay hadaladii odageedu uu soo dhigay meediyaha oo la wadwaday maalmahan uu soo jarjaray anigu macnaha ma soo dhiginin meediyaha kamana soo hadlin sababtoo ah markaan fiiriyay aan arkay waxaan ogaaday inay wax la isku keenay oo la soo jarjaray ay yihiin sababtoo waa hadallo hadba qaar laga soo gooyay biilkaa soo dirtay 200 iguma filnaa qofkii lala hadlayo hadalkiisa dhanba meesha kuma jiro sababta anigu aan fiiriyo maxaa uga soo hadlaa laba qof aan wada hadlaynin on laba erey isdhaafsanaynin laakiin qofkii kaleeto hadalkiisii lasoo qaaday ogow waana odageedii horeeto ahaa xaq la isku leeyahay caruur la isku hayo marka Amiir Qurux maxaa la yiraahdaa si aad iyo aad ayay uga soo jawaabtay way ka kululaatay wayna ka xumaatay marka jawaabteedii ayaan isla arkaynaa ay ka dhiibatay hadaladii la soo jarjaray ee baraha meediyaha la waday sidaa marka aragtid wax la soo jarjaray arrintinkii sida uga hadashaba way adagtahay unless qofkii kaleeto oo laga hadlayay aadan wax ka sheegaynin ama criticize garaynaynin walbalaan isla aragno mucjiso gabar lagu siiyay oo cid kugu aamintay oo reerahooda ku siiyeen ina haddana aad umushi uga dhaqaaqdeed mucjisadeeday leedahay wallaahi aan isla aragno waxaan yarayna waa la dayacay waxaa muhiimada ee maanta inta ii soo fadhiisiyay aniga waxay tahay xalay codadkayga ala soo dhig oo asiga ku cadeynaya aniga inuu asiim soo u dhashtay inuu ilaa hadda oo bilisay oo ku cadeynayo aniga saas ma ku ceeboobay adiga isku xaartay wajiga xaarmaysid aniga saas ma ku ceeboobay codadkaasina ma buu arka baceeb aniga because runta ku sheegay laakiin asxaabay idinku waxa aragteen codkayga aragteen 99 been iyo hal run aan isku keenay codkayga aragteen codkayga fake miyaa dhaad codkayga fake ma run waa anaa ku dhaway hada codkayga fake ma ahayn ma aragtay wax lagu jawaabay iyo wixii aniga oo codkaas ii keenay waxaa la horto jalmada karkarka waxaa ka keeno waa kana hadaladii la isla dhaafsaday cunugaada biilo ilaahay ka cabso haye hadaladan waa asaguna leeyahay waad arkaysiin qoraalka he is not my son go bitch wacalkaaga gees la maro yiri muujeedaa cunugaada biilaa la yiri markaasuu yiri he's not my son cunugaada biilo wacalkaada gees la mar waa aabihiis waxa weeyaan waa wixii aad maqlayseen oo baraha bulshada ka maqlayseen oo dhahaysay cunugaada biilo 200 hayso waxba naguma tarayso 200na way ka daba tagaysaa waxa ay tahay waan ka daba tagaynaa sababta ayadaaba cadaynaysa waa 200 oo meherkeedii weeye 200 oo biilka looga dhigayo qof miyaa meherkiisa biil looga dhigaa waaba meherka ay xaqa kuugu lahayd inay kaa hesho yaa ha ila soo hadlin buu yiri mar kaleeto 2 cunug ayaa ii dhalanaysa yiri twins baa ii dhalanaya you know ha ila soo hadlin buu yiri kuma baahna bitch you know taas hadalla murugo leh naxdin leh qaracankooda wata waxa soo kala aaba inuu ka hadlo ma aha naag umulo oo mushi ku jirto oo ka tagtay waxaasna u soo qortid ama kula hadashid ma aha mucjiso watan oo weelka ani miska xanaaqile ma fahantii markaas xaaway sheekadani yaa idinka ka dhicin hada maanta waa ka hadla hada dhaho sheekada dhan inta bariya ka kaca laakiin inta muhiimsan idin sheeg ha is dhageysano ina dhageystina rajayna videogan wuxuu noqon doonaa videoga ugu dambeeyay ugu horeeyay inaan ka hadlo hal mar aan ka hadlo waxaan rajayna ina fahantiin ina maaragtay hal ii dhageysto please marka dhali kadib ani hada hal been aan sheegaa meesha aan fadhiyo nabad ma iga kiciyo maalinta dhale isbitaalka aan ku jiray ani oo cunuga leeyahay qalay asiga wuxuu isku diyaarinayay inuu turki aado oo ku guursado dadku uma leeyahay dad badan ay soo dhahayaan adigu wax la eedo minyaro naagki ilmu qabi minyara lagu guursado aad naasas ugu gal waa u qalantaa ani minyaro ma ahayn cunugiis ugu horeeyayna waay ani asmarkaas guursanayna naag ma qabin naagna ma qabo Nairobi wuxuu aaday hooyadiis iyo cidiis
xaqiiqdii hadalkaasay leedahay anigaba run baa umalaynayay kolley markii uu guursanayay gabadha nato waxaa la dhahayay minyaro waaye minyaro weeyaan naagti kaleeto minweyntii maraykanka ku qabaa aniga xitaa saasaan maqlaayay saasaan iga dhaadhacsaneen hadda ayadaa cadaynaysa inay minweyntii tahay oo gabadhii ugu horeysay uu guursaday ay tahay taas anigaba waan qabay fikradaasaan qabay familkiisa wiilka yar oo soo dhigto waxaa la dhahaa cabdimaad walaashiisa fartuuna dhashay wiilka yar oo soo dhigto snapchat oo iska dhiga asiga inoo dhalay asi ma dhalin walaashiisa dhashay haddaa idin sheegoyaa naagna ma qabi jirin ilmana ma laha rajayna inaa fahantiin curudkiisa asiimle inuu yahay ogaada ilma kale oo qabin isbitaalka ku jiray asigane wuxuu isku diyaarinayay aroos inuu turkiga kusoo guursado isku diyaarinaya batuuladoo guursanayana maaragta way ogeed aniga inaa ilma au dhale inuu naag qaban way og oo isku diyaarinaya turkiga inuu aado batuuladoo guursanaya turkiga joogtaa ani makuu ogin markaasaa dhale okay batuulada ciddaad waxaa loogu sheekeeyey ani inaa la ii furay inaa la ii furay anoo maaragtay uurkaasle inaa la ii furay aa loogu sheekeeyey oo ninkaan single yahay haddaa been sheega meesha nood ilaah miyay kiciyo waxyaabo oo maarag ku aaminaysiinaan idin sheegaa tartiibkiina suga aabo walba hadduu snapchat isticmaali hadduu wax isticmaal hadduu whatsapp isticmaalayo xataa ilaahay aa ka dhigo social media whatsapp xataa statuskoo soo dhigana aad macaan kusoo dhawow dunida quruxda badan waa ku jecelnahay kusoo dhawow noqonkii dalkiis dadkiis daafaco oo soo dhigana laakiin asma soo dhiganin nin been oo sheegoy bawaaybe oo dhahoy bawaaybe naagtaas mar horaa kala tag nin dhahoy baay soo dhahayo inuu asiin usoo dhigto ma soo dhiganaayo of course aabuhu wuxuu soo dhigtaa markuu ilmihiisa uu rabo ama xaaskii uu rabo laakiin aabe guursanaya gabar kaleeto oo guris ku diyaarinayo oo turkiga u socda oo ayadiioo qalan ka dhaqaajiyey ilmihiisa ma soo dhiganayo maxaa la yiraahdaa youtube-ka or tiktok-ka or snapchat-ka or anywhere sababta uu qarinayaa ayadii buu qarinayaa ilmihii buu qarinayaa naakaluu guursanayaa gabadhan yarta oo quruxda badan buu guursada ama mid ka qurux badan ama ka wanaagsan ayuu guursada waana gabadhii ugu horeysay ma aha naag weyn waa gabar yar waa kasii yareed waqtigan markuu guursanayan ya but why maxaa ku kalifay inuu ilmihiisii qariyo inuu diyaarad inta qaato gabar kaleeto reero ka doonto siduu ayada reeraha uga doontay ilaa meel cilaa ayada kama helinin sida gabadhaas u doonanayo u doontay faamiligeeda ugu yimid oo kaga raadsaday oo ku guursaday meesha ay joogto why maxaa ku kalifay just because waa lagu qala ilmihii ilmo kalena ma dhali karta 2 sano ka bacdi ayay wax dhali kartaa xagga laga qoraa hadda ilmo ma haysataa ilmo ka wanaagsan asiim waa ka xumahay markaasoo haddana hadalladeedii ay kula hadlaysay oo jarjaran soo geliyay markaasoo haddana wuxuu yidhi hey adoo qaawan baan kusoo dhigayaa baraha bulshada haddaa hadashid waa life bay isla soo qaateen ilmay isku leeyiin qaawanaanta maxay tahay qaawanaanta mamiduusan asagu soo arkin miya uu baraha bulshada soo dhigaya mise midaysan ayadu soo arkin ayuu baraha bulshada soo dhigaya maana is arkin I don't know maase anagu nala sheergaranaya oo u baahan qaawanaanteeda ama qaawanaantiis no waad isku ciyaartay asiim mid ka fiicanna ma dhalaysa okay waxaa dhahay asiim maxaa soo dhigan weyse laakiin waa mushkil okay waay waxaa lagu sheekeeyay ani markaa guri aa imaaday guri adnaa joogi aan ku umulay markaa imaaday waxaa la dhahay ayaya aadira waa waxaa u socdaa Ethiopia wallahi oo bilaha ku dhahay been inay ahaan hooyadiis xataa hadday maqlaysa taas maalintaas waa u sheegay wiilka Ethiopia ma u socdaa ayay ma u socdaa dhahay haay dhahay asaa wax walba ku sheegay Ethiopia aadaa oo dhahay qadna ma lahan ana wallahi caadi waxaa u aaminsanaay inta bil aadam qof aamin waa aaminsanaa waa ku kalsoonaay fahanteen ayaya u socdaa okay waxaa dhahay ayay ma u socdaa dhahay okay qad ma lahan laakiin qad hal kamar baa helaysaa ma hano laakiin caadi xataa iiga soo waxa okay ayaya u socdaa la dhahay waa maqnaay wuxuu aastay soo u socod Turkiyo aaday Turkiyo markuu aaday aniga bixitaan waa daal qad ma ku jiro meel ma jiro weysa waxaa dhahay ma ku soo wacay aday anigu ma soo wacnay dhahay like hadoo ku soo waxaa dhahay amiiro ku raadinaysa wacde inta muhiim ma aha laakiin si hadalka ina waxa fiican kuwa laga soo bilaabo markii Turkiyo isagoo joogo wallahi been ma idin sheegay asiim maalinta ugu horeysay atilaal aa geenayo horta habeenkii waa kuriyooda inta maalinta asiim aa geenin tilaal
habeenkii wallahi anoo been sheegay riyana waxaa la dhahay qofku waxaa ugu dembi badan riyadoo beenka sheego intaas dembi ugu filnaa wallahi waxaa ku riyooday asigoo naag gursanaya wallahi xaqan ilaah uu leeyahay inuu gursado laakiin qof walba jeyskiisa oo leeyahay hadda adi aad faraxsanta oo ku joogaysaa laakiin waxaa sheegoyaa khiyaanada laakiin wax walba khiyaanada xun hadda u sheegtid xataa wax weyn maaha laakiin waxaa jiraan waqtiyada oo munaasab ah iyo waqti aan munaasab ahayn maanta oo kale xaaska hadday dhasho ama lagu qalo waxay u baahan tahay garab inaad siisid inaa waxay u baahan tahay haddaa la joogin xataa niid aw dhisid hadal qurux badan aa dhahayd laakiin ma aha waqtigaan ma haboono waqtiyadan oo kale ma haboono oo waqti adagaa lagu jiraa okay marka haweenka soo kuriya subaxdii waa baxay waxaa geeyey asiim tilaalka maalinta ugu horeysay xataa waa ii tusaaya tilaalka asiim maalinta ugu horeysay vlog maalinta ugu horeysay asiim tilaalka aan u waday waxaa kasoo wareegatay 11 bilaa kasoo wareegatay fiiriya markaaseti commentiga waxaa lagu soo qoray amiira ninkaaga caawa gawar ayuu la aqal galay ma ogtahay awalba adiga minyara aheede marka nixaysidii ana minyara ma ahayn maalintaas qoraalkaas aan arkin aada u naxay saa u socday marka dambe ali qabta asi waxa soo wacaa marka hoos degayo shawarma doonayo soo wacaa Istanbul hotel oo saarnay marka waxaa la idhooyaa halo waxaa la idhooyaa ninka wuxuu saaray an xalay waxaas ku riyoona waa ku bariyaa iigin xini waxaas been waay waxaas ku leeyahay titir qoraaladaas dhan an ilaahay waa biskil maamul ilaahay qof oo cunug yar haasta iska ahaa oo qalan okay fiiriya hadaladaas wallahi bila waa ku jira xataa had dib u raaca wiilka amiir aabihiisa caawa gabar kale buu aroos kula jiraa hooyo umba la rafaaday laba qof reply isku galeen replygaas wuxuu ku hadlayay xataa fiiri waxaas muhiim ma aha laakiin sheekada inay ku bilaabay buu wacan tahay marka saas markay ay arinta ay marayso laba biri oo maqnaay hooyadiisa dawga celi waxaa dhahay aaw intuu ka baxay wuxuu u maqan yahay internet ma lahan miya caadi xataa waa u wacay wixiis ma shaqeynaa numberkiisa maxaa ku dhacay ilaa aan maba ogibo waa mail oo markaysa iyadii oo mulki ku jirta oo qalan oo ilmihii lagu qalay ayuu ka tagay ayuu wuxuu ugu sheekeeyay inuu ayadiisa oo Ethiopia joogta uu u tagayo oo soo fiirinayo hooyadiisay wacday markuu baxay oo tiri bays maqasheen teleefankayga ma qabanayo meeshu qadma laha miya maya asaga kula soo hadli doono waa arkaysin ilaa ninkaani meeshaas ma aadinin ayadu waa walwalsanta sababtoo hadduu husbandkaadu kaa tago ama xaaskaadu ay kaa tagto waad walwalaysaa waxaad isleedaha maxaa ku dhacay muxuu teleefanka kaaga qaban waaye dhagtaa kuu taagan soo waxaa garata ma aha ninkaanna waxaanba shuqul kuma lahaane waa kan arooskiisa iyo adduunyadiisa ayuu iska galay markuu teleefanka maxaa la dhahaa uu soo wacayana hoos ayuu u deganayaa dadkii ayaa commenti usoo qoraayo le ninkaada naag ayuu la aqal galayaa ayada xitaa waa ku riyootay soo waxaa garateen ma aha markay la hadasho wuxuu yiri iska ilaa waxaas yiri dadka maxaa kala hadlaysaa hadalkooda baabkaada ka bixi sheekadaaseeto bal imagine put your shoes adiga xaaladeeda kasoo hadalanta soo jirjira baraha bulsho xitaa waxaanayd xishooda مهرة دعاية والله بين ما إذا شيء قاعد أقوله أنا ما بفكرين وحسيتي وحكلا بفكرة يعني وحق تشنيس وحق تشنينا كلا جرا صح أنا مكتشنيس مكتشنين وحاسب وسمينا بقاس وحاسس ده هذا اللي أويل أو عرض وحاسب وسمينا إسده وكل صونا مركب وحاسس ده سبر كيسة يسبر كيجا لو براسهم خيني هاي وأنا آية بنها سبر كيجا يسبر كاسيم يسبر كيسة على تيك توك يعني هاس أو يعني أو جعلي وحاسب على أساس عارف نمبر هذا يا صوعي نمبر هذا يا صوعي ما قصيت فدا ويا والله بين ايدي شيء وإرد درنتهي ما يقدجي تيك توك يقدجي هرت ساده ما في عنتها لو والله بين إنا شيء انه هذا ساده هرت ما في عندها محقوق دعيا ما حد جينا ده تيك توك سيبركي اصور فيديو بس ديليت ده الى واب مال نكاح دعايبو يا اي بطول عدده وحلو شيكي انه ما عرفت انا او يخوين اللي هذه لا أذكر هذا أصلا طلبك إلى هذا أو إلى دج إلى أو عاينا أو إيدك زي أبو طلق وين ما تجنين ولا تجنين وين وكجرام ما تجنين اسمها أو إلى ما تجنين يا ده حسمي كرتا ما تجنين اسمها أو إلى وحدا حمانت محاوية ده يعني محكي أنا على دجي أنا وحدا هناك ترى هاي عمي وكل هذا سبك عليك تروح حسب حوي مو أركي محا أدم محاوي ودي جوسة مركز سيد أو حسمي عنو جيريس أو عبد مالك أو أبتي ويا هاي أو صوت دقيق أصلاً أصبر في الإنجليز أو حق صفري هذا محسوس لكن أنا إيه صعدة
kadib wuxuu soo dhigay inuu asigoo ka dhigay inuu wiilkiisa yahay oo aniga oo wiilkii asim yani oo u baahnayn camal asiga iyo iyada oo isla sawiran oo baabuur saaran yihiin oo soo dhigo oo hadal oo yani oo aad iyo aad yani u farxun oo kusoo qoray ma fahanteen maanta qofkii Snapchat oo arkay xataa uu imagine sababta ama sawirka asaga iyo cunuga ay soo dhigtay ma doonayo meher buu ku jiraa meher naag buu rabaa inuu mehersado waxaan markaa haddii la arko war waxaan maxay tahay la leeyahay gabadhan meesha kusoo dhiganaysa maxay tahay soo mindaan kala teginin soo ma furinin sababtoo isaguna wuxuu ugu sheekeeyay ilaa inuu gabadhan uurkii markay lahayd uu ku furay soo waxaa garateen maaha marka wuxuu leeyahay nabar baa nabar kaa fujiya ilmihii walaashiisu soo dhigta uu leeyahay ilmahaanaan dhalay ilmahayga waaye iyo xaaskii uu guursanayo gabadhii uu guursanayo cusbeed batuuladii ay sheegayso aroontinka batuulo magaceeda in la dhaho laakiin magacay ayada iska samaysato waaye ma doonaysa magaceeda inay afkeeda saartee anyway bal imagine waxaas isagaa qodqoday waxaas shirka lama soo fariisan lahayd gabadhaas ma waxaas dhan ma sheegi lahayn hadduusan hadalladeedii inta soo jarjaro baraha bulshada soo dhiginin cajaladan caadi u dheertahay karaa maanta Snapchat qofka fiirsana xataa wuu ogyahay oo hadaa been aan sheegayo kadib ani TikTok waxaa liigu soo qorayay adi ninka hadda soo dhiganaysid banaago oo Snapchat soo dhiganayo maxaa u faahfaahaysaa TikTok yani saasa liiga soo buuxiyay hadalladaas liiga soo buuxiyay waa iska diyad gareey been ma idin sheegay iyo aad oo maaragtay si xun oo caatinka uu qoraal ma ahayn laakiin yani call ahaan caadi WhatsApp oo iga soo wacay yani asoo istutusaya batuuladiisa asoo istutusaya aniga maaragtay oo si xun alxamdulillah hadda waxaa seetay waa la soo dhaafay laakiin ina waxaan ka sheekeynayaa wixii aan soo maray hadda waxay muhiim ahay anoo Snapchat iska dhex wareegoyo sawir leh ma soo diri karaa oo maalintaas isku dharka ay ahaayeen oo Snapchat oo soo dhigtay ana waxa iska maleeyahay naag inuu iska haasto oo maleeyahay maanta Snapchat oo soo dhigay waxa arkoya oo laba sawir oo yani dad u hambeliyeenooyin iyo waxa dhan full information la soo diray anigana aku qaado asiga WhatsApp oo diro waxa dhahay hada beentu umaleys wax ma dhumayo WhatsApp ma dhumayo laakiin Snapchat I hope Snapchat maalmahaysay ina oo wax walba soo gareey kari laakiin Snapchat ma soo gareeynin WhatsApp wax walba soo gareey marka waxa dhahay sawiradan yaa way naagtana dhahay wuxuu igu jawaabay eraygaanid aan marayba ina akhriyo inta idin soo saara akhriyo She is my beautiful wife Basharo Basharo aldamiya naagta I don't know wuxuu yiri waa naagteedii quruxda badneed buu yiri I am busy sorry mashquul ahay sorry adiga fududaaday sorry I am busy because he's busy aroos ku jira soo moogd waa nin aroos ku jira adaa fududaadu yiri sababta maysan fududaan markuu soo waco yiri naa ka daji masawirka TikTok ka saar markuu yiri way diiday taas noo fududaan husbandkeedii weeyaan ilmaheedii ayadii family qurux badan ayay wax soo dhigatay TikTok ma ninkaana TikTok iyo sheekadaas rabo I put my glasses when I read things anyway ma doonayo sheekooyinkaas wuxuu rabaa hash inuu wixii qariyo rabaa soo because all wuxuu yiri family ma qabo naagta waan furay uurkan ku furay wanaag iyadoo qalan oo isbitaal ku jirta laga soo tagay soo xagarateen ma marka wuxuu yiri naada fududaad yiri sababta masurka ka dajin waysa meesha waana ilaha hadashoon isoo wacwacad yeah I'm sorry this is my beautiful family ama stop dhaha videoga akhriya ciise ma yani saf ma isaf garaysa idin soo saara wax walba meeshaan ka arkaysiin hooyadii asoo wicin aabi asoo wicin asoo waalid wicin meeshaas ayto yani aan ku kala tagni ani asi hadalladaas aan ku kala tagni iyo codod Snapchat asi iyo batuuladiisa oo Snapchat ko iga soo caana oo iidan oo soo qoslayso I hope ina screenshot ka qaado sawir waxa la soo diray asoo xawd u jiifto alxamdulillah nolosheeda saan It is so wallahi heartbroken It is so heartbroken and difficulty Snapchat ha lagu furo hadalladaas lagu furo wanaag walwalsano ninkeedii raadinayso oo aroosna asagii ku jiro oo galayo Snapchat ku furay waalidkeedii iyo walaalaheedii iyo dadkii uu shal ka raadsaday oo ka doontay oo siiyay gabadhan xitaa ma dhihin gabadhiini waa idin furay shalay waa isisan sida isisan ayaa maantana idinkugu furay waa isfahmi weyna xitaa ma dhihin
wax la isku fahmi waayo xitaa meesha ma yaalaan. bal qalbi jabkaas fiiri, bal murugadaas fiiri, maxaa keenay? afar baa ilaahay u baneeyay hadduu guursanayo. waa waxaan nimanka Soomaaliyeed ma wada dhihi kara. nimanka Soomaaliyeed maalinta ay naagti nacaan ayay ilmihii ay dhashana nacaayaan. ilmo maa ilmo ka sharaf badan. bad naagta kala guurso, maybe wadnahaada ka helay, your heart desire is her, bad ma ahan ilmahaadii inaa ilowdid ama aada gabadhii shalay lagu siiyey ee mas-uulka ah ka ahayd ee family kugu dareen. mas-uul daradaas fiiri, raganimo xumadaas, qiimo daradaas aad ku furto Snapchat, hadallo aad isdhaadhaafsateen aad ku furto, just because she doesn't want to listen, just because ma dooneyso ee waxa aad qarqarinaysid ma dooneyso, just because ma dooneyso inaad qarqarisid, just because ma dooneyso inaad carro ku aastid, because ummadii dhan baa usoo dhigtay arooskaadii, ummadii dhan baa sheegaysa inaad naag guursanaysid, iyadii baa xitaa kugu riyootay. bal fiiri daciifnimadaas, so daciif khas. maanta waa raaxaysanooyaa naagta oo dhibaatada heesa adile waaye oo qolka mugdi ku oonoos adile waaye. ani waa raaxaysanoo wax iigma kama jiro. waa kana يعني إعلان وحسي أيوب إن ما عندك تكشف قالك مسديه إنه حنا دعاية لكن سنابشات واحد ما سيف كريه واتساب واحد سيف كريه أوكي ما أنت تصب قلتك نه مركا هل كانت تسوي كانت هذه إنك تصارع فيريا ما أنت سيت وكلتك because قف كلا تقول عدلا أو تكت of course وكلها ساعة قلتك إنه يفر حير مرنا هاديهن إفر لكن واد مقلي ويسي 100k بقول كبدن أما أوذ المها بقول كبدن حليا ما أوذ مهرك هذا نوانكو يرينا يا انت اسمه intaasna hayso hadalladii oo waxa weeyaan allahu akbar hadalladii oo baraha bulshada soo dhigdhigay oo ay dhahaysay in boqolkaadana hayso intaasna hayso wuxuu leeyahay labadaada boqol ku siinaya meherkaada labadaada boqol oo meherkan ku yaryaraynaya ee biilka ka dhigo soo waxa garata maaha boqolka usoo dirayay ay dhahaysay hayso ayuu haddana wuxuu yidhi labadaada boqol oo meherka ayaan ku yaryaraynayaa si labadeeda boqol oo meherka ay uga dhigato biil. ma fahmaysaa? marka waxaasay ka doonaysa waxa lasoo jarjaray oo baraha bulshada soo geliyay ilaa hadalladii ay ku wada hadlayeen wala waan iska gartay taas waa aan inaba uga soo hadlinin. meherkeedii lacagtii meherkeedii ayuu u yaryaraynayaa oo leeyahay biil baan kaaga dhigayaa. shaymoniyo وكلها مركا فيريا وحدهاي بخل كبض وما أودو مهركا جنوا كوير يرينا يعني أنا مهركا اللي يرينا يا مهركا وكوير يرينا بشي لو بخلا كوسينا لو بخلا كوسينا بشي أنا مهركا لو بخلا ليسينا أسين محلسينا بخل بشي ليه محلسينا مهركا لو بخل بشي أنت إذا سارة عمرك أمك كنت هذا لا أدم أخور لهاد أوكي أكيد جذب إنه دلوقتي ما له حصل سوق جذب لكن هذا لا إنا كول بس بلا وافي عنه هذا قرآن كان يتو إيسو قرأ وحيد هاي آدي وحاليا بنا هاي نينك آدي وأراسي دون سيدو بهديل دونه يعني أنا هذا بهدلات كخاذة وعد كلا بهدلات كخاذنا يا ملا صاحب مفهمتي بهدلات عد كلا كخاذنا يا ملا بهدلات هدارة ولا هذا قوس فادي لهاي ساعتها هيك كم سو جاري الحين أوكي هذا أنت نسوا صار أنا مزمسي أقرناي واحد سؤال صوت رافي لكن إذا كرونا إذا شيء هنا لكن وحس ده إنه الله شعري وكنت بقص هذا عنك أقول شيء قف كان صام كونا خدم حاسس ما ينسى هذا أنا أمور كتير سيبر كانيتي أنا يقول عنك يا هستا أسيجني وبشالو يا دلحيس كيس تركي كيس وحيس أدنى قسم المرسيوني أدنى وحي كاسم يسمله أدنى وحاول عنك إنا عانا أو قد قفت عانا وقد واي عنك أصلا عانا وبهان قفت عانا وقد واي فأنتي أنت إذا صار هذا الكان waxay tiri cunugaada beela ilaahay ka cabso
dhiigaaga dheecaankaaga weeye xaq ayuu kugu leeyahay isaguna de waxaas miyuu soo jeedaa he is not my son bitch uu yidhi wacalkaada gees la mar oh my goodness waa ilmihiisii ka waran wacalkaada gees la mar ah marka la haddaa ila soo hadashid blog baan saarayaa mileeya tani twins on the way laba ilmood oo twins ayaa iisoo socduu leeyahay uma baahni ilmahaada bitch nicda igala tag oh my god subxaan allah xasbuna allah wa nicma alwakiil what the heck is wrong with him holy smoking maalintaaned ani wax haystay mal wax gacanteeda oo ku jirayna ma jirto waxa ahay qof gacan furna ahay yani oo wax haysanin oo guri walaasheed joogto marka hadalkaana u qor waxa dhac cunigaaga biililaahay ka cabso dhiiga dhacanka wuxuu igu jibaa wallahi oo billahi oo tallahi aan ku dhahay hadalkan haduu been yahay adoo cadaabta ilaahay geliyo Asim is not my son or dhahay Asim inoo maaragtay wiilkayga yahay Asim ani waxa ma ahan oo dhahay wiilkayga ma Asim is not my son go bitch yani inta ina aqriin mireebani Asim soo wiilkayga ma ahan يعني bitch maxay ugu tilmaamay aniga bitch af English waaye af Soomaali hadii loo bedelano waxa waaye sharmuuto yani sharmuutinimo yani macnaheed anoo yaaymaha wicilka geeska la mar adiga cunuga hadaa la caayo yani asim ma amaanay marka no aabahaag miya ma amaanay waa cabsane markoo saas oo dhahay aniga xaaladeeda yani meel ay maris ma aqaanin because ana waxa lagu tilmaamay qof xun oo yani wicil haysto oo yani cunugeyga ma ahan oo dhahay hadaladaas tina ma aragtay waxay u dhaliyeen xanuun waxay siiyeen karti ay siiyeen u fahanti waxaasoo dhan wuxuu u marayaa sababtoo foofka in laga jiiro ma rabo waxaasoo dhan wuxuu cunugiisii u caayayaa oo gabadhaas uga dhigaya gabadh sharmuuta oo cunugiisii wacal uga dhigayo waxa weeyaan arooskiisa in laga khashkhashaado ma rabo naagta inay tiraahdo waa ninkaygii ma doonay sababtoo meherkeedii ayuu biil uga dhigay $100 meesha ay joogto iska daaye maxaa la dhahaa 400 waxba kama tarto sababtoo waa meeshaas ayta waa meel khaaliya arda student yaa tagta meeshaas ardanima loogu tagaa laakiin dadkii family ku noqdeen waa iska degeen Soomaalidii soo waxa garato maaha ma ilmahaadii xalaasha oo Ilaahay ku siiyay ayaa inaad naag agursanayso caayaysid sometimes dadka qaarkood waa daciif sidoo ku fakray hadaa gabadhii qariso ilmahaadii inaad iska caysid ma aha biilka xitaa adoo yiraahdo war biil maba dhiibayaaba ku dhaanta caydo Soomog boqolaalan la biilin oo maamooyinka single mother looga tagan gadaal dambaba loo fiirin adoo saas meesaba ku dhaantay ma ahan inaa caydid dadka qaar waxay dhaayeen 200 iska qaado 200 waa 200 oo meherkeed oo loo yaryareynayo oo liir biil baaba lagaaga dhigay lacagtaada meherka biil ma noqoto because waa meherkeedii ayada xaq u lahayd inuu aad uga dhigtid biil xaraam calee tada kale ilmahaada inaa caydid maba ahanba maadaama leedahay hadaladaas xun idinka waxa ani aan ku hadlay oo la soo dhigay laakiin asig waxa uu ku hadlay yani misdheena waa la soo dhigayaa laakiin aniga afka ma ii sharooteysno soo dhigi karaa wax walba waxyaabo badan aakhiriin way jiraan waxyaabo badan oo afxumada uu ku hadlaayo aniga ma bakasaab afxumo laakiin afxumada uu ku hadlaayo hadaa soo dhigo meesha madaxa gacanta saarnaysa laakiin hadii 200 dan ay ku tahay 200 qaado hana sheeganin yaa يعني هذا حلو ده مرة حلو ده بخل خاضه مرة حلو ده لو بخل خاضه وباهنا بخت ملاعنه أصحابي وباهنا بخت ملاعنه تنكلا هذه شيء عضت كل صدوة وعضت كنسيتي عضت ما كل صدوة وحياوها أصي أو ده هاي صدق محاولي بيسي هذه مخصص ليسي يعني إذا إسكع عاني لما أنا تنكلا ما بعاني عنقي بعدها عنقي على شيء قرب الله بخل هاي نسي بهم شيء أسيم أنت صدق تلال كيسة وآخر تلال كيسة أي انتصار أصحابته أمريكا أو فلوج أسودوها تلاك أو عنق أو ولا إنه وايد يسودو بيجري وحي يجري أصحابي تلاك مليسي أدي قالوا وياها مرة حكسوا تلال جري لح بقرينجات مرة حكسوا تلال جري تشم بقرينجات يعني مرة حكسوا تلال جري $1 أهان بخل إيو
boqol iyo konton miyaa mar xataa waxaa arkinaa $200 lacagta oo biilka kusii dhahoosid tilaal keligiis leeba waayabo cunuga dhar marabo cunto marabiyo caana marabiyo woo jirinaa wax walba u baahan yahay micnaha ruuxayntiisa waxaan gadgadoosaa caanaha waxaa waaye $1 dharka waxaa waaye $1 shaatiga waxaa waaye $0.5 xafaayad waxaa waaye $0.5 micnaha asi ruuxayntiisa waxaas gadgadoosa ma fahanteen wallahi been ma idin sheegaaye asxaabe waa kana intay ku qoran yihiin waxdhan intay ku qoran yihiin kugu xumaado wiilkaaga tilaal ma siinaysa hataa ma isniin runtii ka goynaa lacagta tirinayay meel aan dhigaay markii tilaalka la gaaro ay geynaa maxay u ogid adi tan kale ha idin sheego markaasaas dhahay waxay dhahay you can't live without me ani laantay manolaa karin because asiga wuu ogaay ani laantiis waqtigaaseeti yani qof waxaa ahay oo maaragta oo isku malayn inay wax qabsan karto laakiin qofka ahay qofkaas ma ahaan jirin ma fahanteen taas been maba ahanbo laantiis aniga markaas wax ma qabsan jirin okay waxay dhahay hadalka oo ugu xun as oo ku hadlaya nin tusaadaani hadalka ugu wuxuu yiri maxaa aniga iga qaadaysaa yiri ballan weeye haddaa magacayga soo qaadi telegram kusoo dhiga adoo qaawan macnaha waxaan kusoo dhigayaa youtube-ka adoo qaawan dhilo masayrsanaad tahay bashaaro ma gaaraysaa oo bashaarada naagtiisa la dhahaa batuulada ee ugu waceyso waxaan kusoo dhigayaa telegram macnaha telefoonada iyo meelahaas iyo youtube-kan kusoo dhigayaa adoo qaawan macno laayaa tahay dhilaa tahay bashaaro maa gaartaa waa gabadhii cusbeyd oo guursanaya wuxuu leeyahay bashaaro maa gaartaa bal eeg ayadii bashaaro maana arkin laakiin bashaaro waxaan ka sheegnaa waa baqal anyway way ku tiirsaneyd oo misdhahaynin sida ay u hadashay la-aantiisa wax qabsan karta sababta waana guurka ugu horreeyay wayna gabar yarna way ahayd way isi siisay miyaa mise waa isku tiirisay hadda waatana cageeday ku istaagtay walaasheeda waa dumaashigeeda faamiligeeda hadalladiina uu dhahayana dhiiragelinay u noqdeen yaa haba xanuun badnaadeen laakiin dhiiragelin ayay u noqdeen waxay keentay ama qasabtay inay cagaheeda ku istaagto yaa waa looga horreeyay arrintan oo sameynayo gabdho badan ayaa uga horreeyay oo single mother oo ilmo looga tegay oon lagu biirin oon gadaal dambe loo soo raacinin oon loo soo fiirinin macaada alla waaba ayade laakiin ayada waxaa u dharcayda aflagaadada hadal xumada iyo ayadii lagu furay snapchat-kii oo reerkii sharafta shala looga doontay aan la dhihin gabadhiina waa idiin fasaxay yaa hayse ku twins ay soo socdo yiri twins wiilka uu haysa muu ka sharaf badan yahay ilaaha deeqda bixiya 2 sano wuxuu sugi waayay ma ahayn laakiin arrin kala waday arrintu 2 sano iyo qalniinka ka weyn as oo ku hadlay aynu tusaa asxaabay suga marka hadda dhahay meediyahan ku soo dhigaa asi hadala ku horeey ani marka dhahay meediyaha ku soo dhigaa yani ma iga ahayn cunuga hadda lacag dhiibo weysi meediyaha ku soo dhigaa ma iga ahayn video recording ka qaada ee meelaha la wareejina kuwa kale ala geeyo xaqiiqda la ogaado aniga ma dhihin lacag hadda isii weysi kaas markaa u baahnay cunuga u baahan ma fahanteen tan kale ani lacag ma rabin ma dhiheen lacag waxa dhahay marka dhahay meediyaha ku keena hadalku waxay ahayd waxa ku horeey codad waa soo jaray ma fahanteen codadku toos min listusinya hadalku yani masaara ku haya يعني قفك سي دمر كو دخمايا نيمان كو دخمايا وا سيداس او كله مهيرا كو مسرك هاي maxaa مسرك keenayo ali sheegaba hadalaas oo ku hadlay adi marka maxaa sameeyay ma ugu qosle abo macaana ma dhaheesid abaamiya ma dhaheesid ka dagaalamaysa lawadi oo ku dhaw laba jibaarkiisa dhaheeysa hadda ifiirsanayso qofkii ku cayro iska cilmi waa caynaysa salaaxiis madaxay ma fahanteen marka asxaabe waxaa idin sheegaa tan kale ani 4 bil ka hor video oo Q&A su'aal ijawaab ay soo weydiisay waxay yiraahdeen yaa ku biilo waxaan idhahay qof oo biil ma jirto markaas dad wali wareejinaa meel kasta waxa soo hadli weysi hadba hadalka waxa soo raadsatay tan kale asxaab idin sheego oo mid joog oo dhahooyo aniga bankigiisa YouTube-keyga bankigiisa igu xirnaa jiray
fahanteen youtube-keyga aniga bangigiisa kaarkiisa igu xirnaa jiray lacagteeda bangigiisa kusoo dhaceysay bangigiisa ana withdraw waa ka baxsan jiray ma fahanteen kaarahaasa waa ka baxsan jiray lacagteeda ka baxsan jiray soo markaa waa baahanaa bakti ma loo cuno laakiin wejiga iska haleysay aad iyo aad ujugaas ani saas laakiin ku ciyo waa video igu dambeeyay oo igu horeeyay igu dambeeyay oo noqon doona mar kalena maaragtay inaad soo fadhiisto ma ka hadlaay qof ceebeysan ma jirto maanta qofka ceebeysan maaragtay waa lii qaynaa ani saas ma ku ciyoobaa ciideeda waxay dhaheen maxaa ku kala tagteen yani maxaa adina kale ugu aas cunugtan hadda ku dhashay maxaa u baxday marmarsi meesha uu ka gaari fiiriyaa amiir waxa waayo ku lahaa waa la qalay 2 sano 2 sano waa la qalay marka ani waxaan rabaa ilmaha rabaa asi monyeero jira hada 2 sano masuul kirtide aabi hada 2 sano masuul kariyo dhahay ilma kala rabaa inaa dhalo saasa sababta sanaa ku guursaday okay hada ugu choice kada iska lahan taas waxba ma ahan waxaa sameeyeen asi iyo batuuladiisa caloosha aan hadda waxaa la yidhahay asi ma u baahni asaa ii baahan twins on the way aa la yidhahay maalintaas idiya aabi ma twinka aan dag baxeen hilyaak mid dhaxgalee maxaa twinke yani ani saa u dareemo قلت يعني سأقدر من أنا أحمل ما أنت صح ما بين معها يعني وحق لها ويل كم حاله نعم حكمينها مع علو الماس الملول مياره لكن وحاب حقيقة صدق وحالي إيه هايبو أميرو بين لبقى هايبو بطول عروشة بحسوب ستي سي يعني أميرو أو إحماطو كله بحلو هالشيء أنا اللي جواله أنا ولا واحد أنا ما بتحرق يعني ما بكل جعلان بقى أنا وح فيرنا بس هيرك أبو جار لا إنه شيء مارك أنا صار لا أنا مارك ميل أقصى بحاجة ميل أقصى كعي أنا عليه هاي يعني هرمركي فينا يعني قدرنا من فينا يبي يجرو لكن إيه إزدالنا وإزدال سبب من شيء جاي هذه بطولة وإزدال سين توين كماركتي الله إذن سي الله إذن روميو توين كماركتي هاد وادس إلى هذا الشيء جاي الله إذن روميو كنا كي عاسلة واي وحبا إسكدي ديجين حتى جعلالة إنه هاي إسكدي أقسم أني أو جعل سبر كي وحبا إسنادك أصور ديجين ما كان بهني ما أنت ماركتي برتي جيسة markadad ku kaceen waxa isku soo khasti soo fadhiisatay birthday-giis maaragtay waxa soo dhihi leeyahay soo fadhiyo waxa isnaadad soo dhihi leeyahay aab macaan happy birthday soo dhihi leeyahay ma dhihi kartid no say ku dhahay ma dhihi kartid be twins ku soo socdaane isceebeynaysaa tii kale sidoo ku wacdaatan naha xaq maaragtay wajihi marsad xaakane youtube-keyga xooga saaray sida maaragtay video badan hadda gelisi youtube lacag ka soo dhacay of course lacag ka soo dhacay guriga aad deganaa $500 waaye $500 waaye ani maanta taa cunug aad dhal lahayn guriga ma ijaara lahayn waa shaqeyn lahaay guri walaashay qolka aad deganaa qolka heerka aad deganaa jir aad degnaan lahaay ka single ahay cunuga waaye guriga waxa uu ijaar inuu ku nafiso oo cidla oo dareen yani oo dareemin ciriiri inoo dareemin raaxo inoo dareemo oo ku noolaada noloshiisa uu macaaneed guriga u degay ma fahantii lacag ma aha 200 maanta tilaalkiisa 200 ma fahantii hooya rafacda hooya fikirta hooya dhibaatoota hooya murugoota waxa garata ma wiil kasta aabihiis ka tagay hooya ama gabar kasta hooyaada la soo murugoota hooya dhexda u soo xirata hooya anfacada u diida hooya la soo galan gasha wallahi billahi waxa waaye macnaha ilmaha adiga aad dhashay oo ilaahay ka beeray gurso macnaha hadaadan waxayn ma bahaysa diga dilay wax ku dhiibay ilmahaada inaad beelatid sharaftooda ilaalisid moraalkooda ilaalisid qalbigooda ilaalisid waxbarashadooda ka fikirtid koritaankooda ka fikirtid ilmaha aday kuga abtirsanayaan adaa dhalay kuwa kaleeto oo naagta ku dhalayso oo aad jeceshahay iyo kuwan iska sin naagtan waxbaa ku falin waabad ka tagta naagta laakiin ilmahaadii inaad ka tagtay sida aad naagta uga tagtay مش معقول maaha Soomaalidu waxay yaqaanaan naagta markay furaan ilmaha gadaal uma soo fiiriyaan ma biishaan waxba kuma tartaan ma yiraahdaan xitaa ilmaha iga maqan fahmaysaa kuwa kale naagta u dhashay ayay fiiriyaan kuwaas because hooyadooda la jecel yahay samoogid kuwaas macna leh kuwaas la rabaa kuwaas ilmaheeba bal fiiri waxaan
siduu ayada uga dhaqaajiyey ee telefoon snapchatka uga furay ayuu ilmihina ugu furay uga dhaqaajiyey. bahdilkaa kaaga daran xitaa, laakiin cagaheeday ku istaagtay. kaarkaydu lacagta kala baxdaaba yiri markii hadaladii la jarjarayay, because lacagtaydaa shaqaysatay, waa isku kaar, waa isku qoran yihiin, waxeeda ayadaa iska leh, xaq bay u yeelatay inay withdraw ku sameyso. soo waxaa garateen maaha, cajalada aada iyo aada bay u dheer tahay. am sorry Amiiro, wixii kugu dhacay waa kugu dhaceen, laakiin waad aad ka istaagtay, waad ka maxaa la yidhaha dhexdaa ka xiratay, gurigaan aad degan tahay, wiilkaadii hadba dhinaca kuugu ordaya, kuugu baashaalaya, free life aa ku nooshahay hadda, maasha allah. walaasha iyo walaalka na garabkaada istaageen, ayagaa kusoo gacan qabtay, ayaga ilmahana kula soo koriyey, la-aantoodna waxa weeye challenge ayay kuga ahaan lahayd, laakiin familigaada dhexda kuu xirtay, waxaa uga baahantaana male. isagaa isceebeeyey, isagaa isxumeeyey, isagaana keenay inuu baraha bulshada lasoo dhigo oo laga hadlo. family aysan ka hadli lahayn oo aysan soo bandhigi lahayn ayay soo bandhigtay. wixii jira ka hadal sidii loo dhahayay, xitaa waxaa ninkan ku hadlayay ayay u hadashay. dheriga maxaa karka ka keenay tiri, because dabka ku shidan ayaa ka keenay. soo waxaa garata ma aha, wax daboolnaa oo qarsoonaa oon banaanka imaan lahayn ayuu keenay. soo waxaa garata ma aha, ilmahaada biilo soo jarjar, yaa soo jarjara ilmahaada biilo. meherkeedii yaa biil qof looga dhigaa, qof meherkiis miyaa biil looga dhigaa? no. $100 meesha joogto muxuu ka qabanayaa? adoo qaawan baan baraha bulshada kusoo gelina, muxuu kasoo gelinayaa iyadoo qaawan, adigoo 2 qof oo isqabtay iskursatay? maxaase keenay inuu gabar qalan ka dhaqaajiyo? why? because waa qalantaa 2 sano kabacdi waxba ma dhali kartid, mid kaloo ii dhashaan raadsanaya, midda kale horuuba ula socdo, sababtoo ah qof uma duuleen uusan hore ula soconin. ninka ayada guursanaya ayadu taas la socda, saacideeda uga danto maba wuu ka dhaqaajiyey. wuxuu yiri waxaan aadayaa Ethiopia, laakiin Turkigu aadanaa kusoo guursanaya, waaba u diyaar, waaba u ballansanayd, marka waa inuu ciddi ka raadsado sooma. ninka ayadana saasa looga tegay. alxamdulilah, waatana wax ka maqan ma lahan. dhibkiiyo dhaawacii kusoo gaara dee ilaahay kaa dhaya, sida hore u soco, gadaal ha fiirin, sida aada u sheegtay, aadan gadaal u fiirinin, hore ugu soco. I hope nin kastoo ciyaalkiisa dayaca inuu gadaal isugu noqdo oo isfiiriyo, sababtoo ilmaha adigaa dhashay, there is no reason aa ku dayacdid ama aa ku dhibaataysid ama aa ku xumaysid. ilmuhu marna qaladkaa ma gelin, sababtoo a naftaada qaladkaa gashay, because naftaada waxay raadinaysa. halkaasaan uga baxaya guys. like to share and subscribe and like and share, sababtoo ah if you share and like saartiin yacni dhiiragelin meel dheerna wayna gaarsiinaysaa. insha allah inaad share garaysiin oo like saartiin. intaan hawada ku kulmi doono waxaa idin rajeynayaa khayr. dadka abaareysanna ilaahay abaaraha ka dulqaado, dagaalada socda bari ka socdana ilaahay ka dulqaado. dani allah u sheegay inay ummadda nabadda xal ugu jirtay aysan ugu jirin dhibka iyo dhaawaca, uusan barakicinin ummadda ilaahay. what is the political? Nobody knows what the political is.